magacaygu waa Aways Cumar Salaad waxa igu maqaala ah oo la ilaga soo xiriiray la ii sheegay in la igu daray guddiga doorashada musharaxiintan isdiiwaan gelin ay sameysteen arrinka oo ah mid khalad ah anigoon la iga wareysanin ogolaasho aan la iga haysanin in la ii isticmaalo magacayga la isticmaalo lagu soo daro taas midda aan hadda aan rabo inaan sheego oo ah inaan aniga Aways ahaan aan ku jirin guddiga la magacaabay aan wax ogolaasho aan la iga haysanin marka sida daraadeed waa inaan marka sida ay u ogaado wada dhaqameedyada salaadiinta oqaasha haweenka ururka dhalinyarada dhamaan waxaan ahay aniga markii horeba nin halkan u soo gaaray inuu u tartamo xildhibaannimo kursi xildhibaannimo musharax u ahaa u tartamo haddana aan diyaar u ahaa inaan usii tartamo welina aan sugaayo maadaama ay intaa ay jirto in wax kale aan weli aan ka warhaynin laygula soo warramay intaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum ruuxa waxaan ku ogaaday in la iga soo wacay la igu yiri magacaaga lagu soo diray warqad guddiga doorasho hadda la magacaabay magaceygii laga dhex sheegay la igu soo warramay markaa waan ogaaday inaan aniga ahay marka sidaa daraadeed aan kusoo gaaray halka xiriir mala sameysay dadka kugu soo daray ma weydiisay waxay kala jeedaan absolutely anigu waxaan rabaa Jubbaland oo nabada waxaan rabaa doorasho nabada waxaan rabaa wax walba inay nabad ku dhamaadaan marka waxaan ahay nin wax soo bartay nin dhalinyaro ah maaragtay mana raba hadda in aan magacayga loo isticmaalo